haddaba qodobada barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah Israa'iil oo la sheegay saakay mar kale inay xadgudub ku samaysay xabad joojintii magaalada Gaza iyadoo duqeymo culus ka fulisay xaafado ku yaala dhanka koonfureed ee marinka Gaza. haddaba tafaasiil ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqeymahaas ayaynu barnaamijka idinkugu haynaa. waxaa sidoo kale barnaamijkeena kusoo gudbin doonaa senator caan ah oo wadanka Mareykanka u dhashay ayaa dhawaan wuxuu booqday Israa'iil markii uu soo laabtay wuxuu sheegay hadallo la yaab leh isagoo tilmaamay in hanaanka difaaca Israa'iil aanu awood u lahayn inuu ka hortago gantaalaha halista badan ee Iiraan. araggan ayaa kusoo beegmaya xilli Iiraan shalay ay tijaabisay gantaalo kala duwan iyadoo laga riday gantaalahaasina dhowr magaalo oo Iiraan ka tirsan. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa Donald Trump oo sheegay in Mareykanku ay samayn doonaan maraakiib cusub oo dagaal oo noocyo kala duwan ah loona bixin doono magaciisa Trump. haddaba shacabka Mareykanka sidee u arkayaan arrinka iyana barnaamijka ayaan idinkugu hayaa. qaybta dambe caasimada wadanka Ukraine ee Kiev ayaa korontadii ka tagtay meelo kala duwan oo dalkaasna waxaa la sheegay in ay la kulmeen duqeymo aad u culus oo ka yimid saacadihii lasoo dhaafay dhanka Ruushka. ma argoosigii generaalkii Ruushka ee lagu dilay magaalada Moscow mise waa howlgallo kale oo militariga Ruushku ay wadaan. haddaba wararkii ugu dambeeyay Ukraine iyana barnaamijka ayaanu qaybta dambe ku faahfaahin doonaa. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirno. warar cusub hadday soo kordhaana waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii ugu horreeyay maanta oo Talaada. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa. Israa'iil ayaa la sheegay in ay mar kale xadgudub weyn ku samaysay saakay xabad joojintii ka jirtay magaalada Gaza ee u dhaxaysay iyaga iyo Xamaas. haddaba wararka ay soo tabinayaan wariyaasha ku sugan magaalada Gaza waxay sheegayaan dhanka koonfureed deegaanka la yiraahdo Khan Yunis in Israa'iil ay duqeymo culus saakay ka geysatay. haddaba wararkii ugu dambeeyay warbaahintu ay ka qoreen sheekada saakay waxaa soo gudbiyay telefishinka Al Arabiya bogiisa waxa uu sheegay in xadgudub cusub ay sameeyeen ciidanka Israa'iil iyagoo rasaas aad u culus ku riday dhinaca koonfurta magaalada la yiraahdo Khan Yunis ee ku taala daanta galbeed ee ku taala marinka Gaza. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in heshiiska xabad joojinta Israa'iil ay u muuqato mid aan dheg jalaq u siinayn oo aan ixtiraamayn mar alla markay rabtana ay rasaas ku ridayso iyo madaafiic halka ay doonayso. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan dhanka kale madaafiic in dhulka laga soo garay iyo rasaasba ay ku fureen koonfurta bari deegaanka la yiraahdo Mukhayam al-Barij oo ku yaala bartamaha marinka Gaza. dhanka kalena weeraro dhinaca cirka ah ayay ku qaaday Israa'iil saakay dhinaca bari deegaanka la yiraahdo Deir al-Balah. haddaba marka Israa'iil iyadu xabad joojin maba qortaba meeshay rabto waa iska weeraraysaa. maanta oo dhan waa laga hadlayaa xabad joojintii la jibiyay, xabad joojintii la ilaaliyo. hadda ugu dambeysay shirkii ku dhex maray Mareykanka, Turkiga, Masar iyo Qatar Miami magaalada la yiraahdo wadanka Mareykanka in ay dowladahaasu sheegeen Mareykanku inuu mas'uuliyad iska saaro Israa'iil inay joojiso xadgudubkan. Witkoff ninka la leeyahay inuu ballan qaaday ergeyga Mareykanka, laakiin ballanqaadkaasi maxaa ka soo baxay? waxba kama jiraan. macnaha xabad joojinta maba qortaba cid la hadli kartana male. xabad joojinta dhankan Xamaas kaliya laga ilaalinayaa. marka hawshaas wararkii ugu dambeeyay magaalada Gaza ayay ahaayeen. dhanka kale senator caan ah oo ka tirsan senatarada Mareykanka ayaa dhawaan wuxuu booqday Israa'iil. wuxuu la kulmay Netanyahu iyo rag waaweyn. ninkan wuxuu soo ogaaday xog ku saabsan Israa'iil inaysan u babac dhigi karin gantaalaha halista badan ee Iiraan ay haysato. waxa la isku bartay
12 maalmood dagaalkii socday ayay labada dhinac isbarteen ilaa hadda marka Israa'iil waxay caddaysay haddii dagaal qarxo gantaalahaas inaysan celin karin wax kasta haddii la sameeyo marka gantaalahaas sababta kaliya ee Israa'iil ay uga badbaadi karto waxa la leeyahay waa in laga hortagaa gantaalahaas meelaha ay yaalaan inta loo tago lagu burburiyo warshadaha soo saaraya laga hortago hadalka marka senatarkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli shalay dhowr magaalo oo caasimadda Iiraan ay ku jirto laga tijaabinayay gantaalo Iiraan ay tijaabsanaysay taasoo haddana la leeyahay cabsiye ku sii abuurtay Israa'iiliyiinta haddaba markaan idin tuso wakaaladda wararka ee la yiraahdo Anadolu ee waddanka Turkiga ayaa waxay qoraysaa senator Mareykan ayaa sheegay sawaariikhda Iiraan inay awood u leeyihiin inay dhex maraan oo ay ka dhex baxaan hanaanka difaaca birta ah ee Israa'iil gantaalaheeda ay haysato haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay senatorkan Mareykanka oo lagu magacaabo Lindsey Graham ayaa wuxuu sheegay sawaariikhda plastiga ah ee Iiraaniyiintu ay adeegsanayaan in aysan tabar u haynin hanaanka difaaca Israa'iil ee yiraahdo al-qubbatu al-hadiidiyya ama gaashaanka birta ah haddaba waraysi uu siiyay senatorkan joornaalka Israa'iil laga leeyahay ee yiraahdo Jerusalem Post ayaa wuxuu sheegay shalay in markaa booqashadiisa Tel Aviv uu arintaa ku soo ogaaday wuxuuna sheegay in inta laga fakarayo barnaamijka nuclearka Iiraan ay tahay in awoodda la saaro sawaariikhda plastiga ah oo khatar fara badan ku haya Israa'iil marka ninkan Graham leeyahay senatorka wuxuu leeyahay waxa aan ku arkay Israa'iil tabar ma hayso tabar ma jirto meesha gantaalihii Israa'iil ay ku faanayso oo adduunka ay lahayd maartay oo gantaaluhu ka hortagaya kanuu sameynaya ha sheegin u dhaa meesha waxaan ka soo ogaaday khasaarihii dhibaatadii ay geysteen gantaalihii Iiraan dagaalkii 12 bari socday wixii Israa'iil ku dhacay ilaa hadda dhagaheedii ka qaylinayaan nimanka Iiraaniyiinta niman caadi ma marka wuxuu leeyahay khatarta laga sheekaynayo nuclear ay sameynaysaa kanay sameynaysaa Israa'iil waxaaba uga daran khatartaas hadda dagaal hadduu bilowdo nagta laga saarayo Tel Aviv iyo meel la deena male gantaalahaas wax ay karo oo Iiraan ay haysato male haddana tadwiir ay ku sii sameynaysaa wayba sii horumarinaysaa waxay ka sii dhigaysaa gantaalo khatara marka wuxuu leeyahay Trump iyo ragiisa waa inay ka shaqeeyaan gantaalahaas halista ku ah Israa'iil sidii loo baabi'in lahaa marka gantaalaha iska baabi'i miya meeshan haddaad tagto biyo badan soo cabaysa nimanka shiicada niman caadi ba loo geli karo hawshaas marka halkaas ay baraysaa qodobka waa ka gudbaynaa sheeko kale ninkii Trump ahaa wuxuu yiri waxaan samaysanaynaa maraakiib cusub samaysanaynaa Trump loo bixinaa waxay isugu jiraan diyaaradaha kuwa xambaara kuwa gujisyada badda biyaha hoostooda mara waa isdhiseenaa marka adduunyadan marka waxa u jeedaa inaan macna ahaan u fiirino in dagaal cid kasta ay u diyaar garoobaysaa meesha ka muuqata Trump maraakiibaan samaysanaa u leeyahay waxaan ka hadlaynay maalin hore ninka la yiraahdo Erdogan oo sheegay isaguna markab weyn oo kuwa diyaaradaha qaada in Turkigu samaysanayo maalin dhaweyd Macron madaxweynaha Faransiiska oo Imaaraadka tagay isaguna wuxuu sheegay maraakiib kale oo dagaal oo kuwa diyaaradaha xambaara inay samaysanayaan Shiinaha wararkii isaguna ka imanay waxay sheegayaan in maraakiib kale oo kuwa diyaaradaha xambaara u samaysanayo marka adduunkii oo dhan markab diyaaradaha xambaara marka muhiimadda markab diyaaradaha xambaara uu leeyahay maxay tahay markabka diyaaradaha xambaara badda dhexdeeda isagoo iska jooga diyaarado ka soo weerarayaan wadanka inta sugaysid in laga soo weeraro dhabarka laga soo saara meel walba ka soo galayaan inkastoo hadda la leeyahay gantaalo halis badan oo lagula diriro maraakiibtaas ayaa ruushku sameeyo haysta marka diyaaradaha maraakiibta xambaarta waaba loo yaabaa leeyahay hadii dagaal bilowdo gantaalahaasu way dhalaalinayaan marka
markabkaas marka diyaaradaha xambaara waa wadan dhan oo guuraayo waa diyaaradihii iyo wixii oo dhan oo wataa baddaasuu joogaa keligiisa waxaa waardiyeynaysa ugu yaraan 10 markab oo kale mid gantaala haysta oo gantaalaha lagu soo rido ka difaacaya kuwa miinabaara kuwa waxa dhinacyada ka socda raxana oo uu galbina wayaaba marka wadan kasta marka wuxuu leeyahay markabkaasa samaysanaya waa is xoojinaya arinta badda xoojinaya marka adduunka oo dhan marka wuxuu noqday adduunyo u diyaarsan dagaal in maartay uu soo socda dareemaysa marka ilaahu naga badbaadi waayo marka aan aragno marka wararkii ugu dambeeyay wargeyska caanka ee leeyahay Asharqul Awsad ayaa qoraya saakay Trump wuxuu sheegay inuu samayn doono maraakiib cusub oo kuwa dagaalka ah oo wata magaciisa haddaba 15 ayaa la samayn doonaa oo gujis iyo 3 markab oo kuwa diyaaradaha xambaara ah marka waxa leeyahay marka hawshaas oo ninka Trump ahaa wada leeyahay shaqadaas u socota marka adduunyadu markuu halkaas ay maraysaa ninkii Trump magaciisa lagu sameeyay uu leeyahay marka shacabka Mareykanka sida uu arkaan iyo soo u arkin ayaga u taala marka Trump magacyada asaga ugu ma horeeyo madaxweynayaashii hore Mareykanka qaar kamid ah ayaa maraakiibtan dagaalka diyaaradaha xambaara magacyadooda loo bixiyay marka isaguna alaabtaas ka basiirsan yahay marka waa in la ii sameeyaa uu leeyahay marka odaga hawshaas ayuu rabaa inuu sameeyo marka alcumuum waxaynu ka fahmaynaa meesha in adduunyadu ay isu hub urursanayso meel loo socdaba waa un la isgaraaci doonaa maray noqoto qadar xayeysiisa kadib waxaan galaynaa caasimadii Ukraine oo korontadu ka maqan tahay kadib markii Ruushku uu weeraro culus nagta kaga saaray Kiev iyo magaalooyin kale haddaba xaalka Ukraine waa sidee barnaamijka aynu qaybta dambe ku faahfaahineynaa xayeysiis kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya maanta Talaada aan idin soo gudbinayno qaybtan ugu dambaysa waxaynu kaga hadlaynaa arinta Ukraine iyo Ruushka haddaba saacadii ugu dambeeyay Ukraine waxay la kulantaa leeyahay weeraro culus oo maartay dhanka Ruushka kaga yimid weeraradaasoo waxay ka dhaceen oo lagu qaaday dhowr magaalo oo Ukraine ka tirsan waxaana ugu weyn caasimadda Kiev maxaa ku dhacay marka korontadii baxday meelo badan oo kamid ah caasimadda wadanta xilli qaboobaha lagu jira dadka qaar korontada siyaabo kala duwan oo isticmaalaan waxyaabo badan jira korontadii uu nagta ka dhigay marka arinkan waxa leeyahay ma hawlgal horay u socday u qorshaysnaaba mise wuxuu ka xanaaqay generaalkan barnaamijkaygii hore ku soo qaatay shalay ee lagu dilay magaalada Moscow gaarigiisa bamka loogu rakibay oo sirdoonka Ukraine inay ka dambeeyaan loo maleynay generaal maartay sare oo ciidanka ka tirsanaa Ruushka ma loo arguday ma hawl kale ahayd matii argudida generaalka ma soo socota lama yaqaano marka sheekooyinka kale ee cajiibka waxa kamid ah meelaha la duqeeyay oo Ruushku nagta ka saaray waxa kamid ah xuduudka Poland Ukraine iyo Poland waa daris Polandna waxay ku jirtaa NATO macnaha waxa ku jira qodobka shanaad haddii wadan kamid ah wadamada ku jira NATO weerar ku dhaco la soo weeraro waxay la mid tahay dalalka kale oo dhan la soo weerar dagaalkii galayaan marka maxay sameeyeen Ruushku wuxuu sameeyay xuduudka meesha Poland uu nagta ka saaray Poland inta cabsatay ayay diyaarada hawada gelisay kuwa dagaal kuweeda iyo kuwa NATO leeyihiin iyo waxaan ilaalinaynaa xuduudka ilaalinaa waa ogyahay Ruushka wuxuu rabaa xuduudda inuu nagta ka saaro meesha marka Ukraine hadda ilaalin kartaan kaalay ilaaliyo leey haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay Al-Arabiya waxay leedahay weeraro dhinaca cirka ayuu Ruushku ku qaaday Ukraine waxa go'ay korontadii magaalada Kiev ayaa go'day weeraradaasi dartood ayay u go'daalay haddaba dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa u muuqda mid sii xoogaysanaya iyadoo maanta oo Talaada Ukrainianku ay sheegeen in Ruushka saakay weeraro cusub uu ku soo qaaday goobo kala duwan oo marka ay ku jirto caasimadda iyadoo hanaanka korontada caasimadda uu marka korontadii dhan ay baxday kadib markii duqeymo culus ay la kulmeen haddaba qaybta kale ee muhiimka waxay tahay dhanka kale waxa leeyahay ciidamada
warso macnaha Poland ciidamadeeda ayaa waxaa la sheegay iyo kuwa gaashaanbuurta NATO inay kiciyeen diyaarado Poland iyo kuwa kale oo NATO ay leedahay saakay aroortii iyagoo ka baqay duqeymaha Ruushka inay ku soo fidaan dhanka Poland oo ay dhibaato soo gaarsiiyaan weeraradaasi ayaa waxay ka dhacayeen dhanka xuduudka Poland marka Ruushku waa ugu talagalay lagu leeyahay wuxuu leeyahay Poland iyo NATO Ukraine hadda difaaci kartaan kaalay marka Ukraine soo u garaacayo xuduudkii u garaacaya Poland meesha Ukraine iyo ay joogaan laakiin waxa leeyahay meeshaas muxuu u garaacayaa meeshaas waxa uu ka shakisan yahay dhikan inta badan waa meesha ay madaxda markay booqanayaan Ukraine ay soo maraan hub hadii Europe uu ka imaanayo meesha laga soo galiyo Ukraine laga soo galiyo meeshaas u furay Ukraine meeshii marka ayuu duqeynayaa marka waa istiraatiijiyad military la leeyahay marka waa arki doonaa wixii soo kordhay asxaabay barnaamijkaygii ugu horeeyay maanta talaada waa nagtaan waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo